بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كسو قيب قلياشا كلا دوان oo xildhibaanka iyo hadda naga tagay iyo wasiirkii hore gaashaandhiga saxafiga mataqaana experience-ga leh iyo bahda saxaafadda kasoo qayb galayaasha sharafta leh oo rag iyo haween isugu jira oo aqoon-yahanadu ay ugu horeeyaan dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaam qodobada say u kala horeeyaan aan u gelaynaa runtii waxaa ugu horeeya 10 milyan inay dawladdu hesho lacagta dawladdu ay heshana sida laga warqabo aeroboorka iyo dekedda ayay ka heshaa 10 milyan biriguna waa u dheer yahay. waxaa kaloo dheer mataqaanaa kaabista laga helo dawladaha taageera dawladda Soomaaliya oo caalamka saboodka caalamka ka imaanayo oo kala duwanna hadduu yahay mid dib u dhis iyo hadduu yahay mid mataqaana oo lacag cadaan ah. runtii waxyaabaha dawladdu marka meelaha ay ku qabato waxaad ogtihiin inaan mushaar jirin, waxaad ogtihiin in ay dadka Soomaaliyeed wax mucaawina oo maanta mataqaana ku socda ayna jirin oo dadka danta yaray ay aad iyo aad u liitaan. marka waxyaabaha ugu daran marka waxaa waaye sharciga oo qofku uu ka sareeyo sharciga Soomaaliya wasideedaba saad ka warqabtiin qofka waxa haga waa shuruucda. haddii qofku marka uu sharciga ka sareeyo oo cid wax ka qabaysaba aynan jirin markaas hadda inuu lacagta iska dhaco oo uu gurigiisa dhigto oo uu mataqaana ku tasarrufo si qaldan hadda waa wax iska caadi ah. maxaa yeelay hadda ka hor waxaad ogtiin madaxweynuhu inuu inta baarlamaanka hortagiyay oo yiri sharci iga horeeyay aniga gacmaha iga xiri maaho meelka weyn baarlamaanka oo saas lagu yira oo Soomaaliya ay joogto ma jirta hoolka baarlamaanka oo ma jirto. taas waxay ku tusaaleeyay marka in cid walba marka ay tusaale ugu filan tahay cid kasto howl ka haysa lacageed inay dhici karto. maxaa yeelay sharcigii iga horeeyay aniga iqabama hadaa tira saad ka warqabtana qofka xilkiisa sharciga horeeya adiga haddaan ilaahay quraankan ku soo gaarsiin cid ku qabsan karta ma jiro. ilaahay markii hore kitaab uu keenay kitaabkaas lagu soo gaarsiiyay adoo markaad dhalata kadib waa u timida soo yaala gaaladii intaan quraankan la imaan aan wax la soo gaarsiin cid ku haysata mala gaalnimadooda. maxaa yeelay ilaahay alastu bi rabbikum markuu dadka dhahay وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ربكين مي أنا نهينوي قالوا بلا إيره مركاسيك واجب كل نقد هدي مركا قفك أو صنب الشرعي كهرية كل رقم ما أويري تصحيك وتصحي مركا إنه ربيو إنه شهوات كيسة هي تصرف كيسة أو سقط رقم مركا الدولة الصومالية ما دام أين الشرع كل رقمي أو شروع دي أي كتر لابسنا يسو أو مدحويني أبويني أويري أنا جم الشرع إجاه الرياء جمعه إجاه حراية هدايني العقلون طيا يا ديده وحتى سوهلس أو أد أكتي قفك هدون الشرع أو نسكت دفاعي أو شروع أتحلك كويس أو كد دفاعي أي سنجري أنت كوم عودات النجوشة معايا الشرع اللي سجد دفاع ده مليه مركز هذا الشغداد وين وحو كيرا نعم وحو يرى هذا صح
ويري نينكي كاسر ريا دبا صعيه dadka oo aad arkaysiin hadii bini aadanka afar loo qaybiyaa mid waxa waaye mid in dhale oo cilmi leh oo meel uu ilaahay u aadiyo yaqaan midna waa mid caamaho kaas u shadaba saarta oo yiraahdo kana sheeqiya anigu wax ma aqaan asigaan iska daba socaa inuu fiican yahay dareemay asaan ku xiraa كاسو جنة وكجلا كنا دون جنة تبي جنة ديو لجلا إلا كم والله حنة مد إن عن لهين أو جاهلة أو هوايرات واحد الملين أنا صح أنا كله واد بجلا مرك هالكلا دبجلا نارتي إسلا جلا بين هذا كأفر تصوع مرحبا شرع اللي قلنا قمين قفك كوبوهين هذول شرع يكون نقمي هذول شرع كوب نقمي معايا لا سجا أدنى حاجة يوكو جفيننا الصلاة واسك دبا صعيد مركب مسقى تاسع أعباء وهذا أركتين لبا هرو موشرا لكان ساعد ثم وجدين إنه له ما يجي برلمان كان تجا وإسدفاعه وحبان إفاهوي ما يفكرت ده ليرادي هو شو سيدي يكون صعب أضاء عمصن أضبحه ولا اللي يقول ده لي سيدي وسكتك عيله وقبيا ميلو الله فنيا حق أو صومالي يصيرها قالوا ديد تاسمر كم إيش أي كلمية كتير أو أفضل ولا ده سوما دارك مركب عدوي يكون عان وحلا سوي شيء أقولي يا مارك lacagtaana tabtaas waaye dad jeebkiisa sigaara ugu socota cid la xisaabtami karta oo joogtana male maxaa yeelay barlamaankiiba waxa la yiri sharci aniga iga horeeya gacmaha la iga xiri ma halan anigu hadda sameeysta ma ogi aqoon jirtay moogda marka sharciga sameeysato adiga aad isku beegtanay xuka dhiba taas horta musuqmaasuq saasoo u jiriya lacag badana umada Soomaaliyeed waxa waaye saadka warqabtiin example hadii ka soo qaad adiga wiilan maalin dhaweed la hadlay wuxuu yiri baabuuran wata $30 bish la iga qaada $30 la iga qaada wiil yar waaye oo dhalinyaro hadda guursaday gurigayga 20 laga qaadaa hooyri $10 tobanna baabuurka socodkiisa laga qaadaa ka soo qaad marka meeqa baabuur iyo meeqa guriya xamar ku taala marka waxay noqonaysaa lacagtaas marka la xisaabiyo biriga ka imaan karto ninkaas hadii lagu dhifto waxaan ka soo qaadnay 500,000 oo qofood marka inay sidii asigata oo xamar joogto ilaa qofka tabar yar inay jirin inay u jeedin lacagtaas marka hadii lagu dhifto adiga la iska reereebo oo inta dhumi karta 15 milyan ka soo xiro karta bish ninkaas marka lagu bees gareeyo oo aad ka xisaab qaadato ilaa practice adigu ma sameey kartid sheekada caadiga oo shaqada oo lagu ma idmano hawsha kama shaqeeyaysid laakiin waa example tusaale inuu $30 bishi soo xireeyo asoo $30 haduu soo xireeyo markii lagu dhifto 15 milyan ka soo xiroohay waa birigan kale oo xamar magaalada xamar kale arintaas marka waxay ku tusay tanawaatan hadda lagu leeyahay 10 milyan waa dekada aeroboorka laga hela lacagti kale iska soo qaad 30 milyan marka waa soo xiroo kartaa in ka badan arimahaas marka waxay keeni karaan in dadka Soomaaliyeed shaqaale loo qoro dawladii hore Soomaaliya hadda dhowr boqol ay ahaday shaqaalaheedo tan hadda hadii la isku celiyo 7,000 waa Somaliland 15,000 waa tan 7,000 waa dawladii dhexaday 7 tahay gobolna oo yahay 15 ma isleedahay inaan dadka Soomaaliyeed loo adeegin oo aan hawl loo qaban oo aan loo khidmayn taasay ku cadda
marka haddii aan musuqmaasuqa waxyaabahaas aan uga baxo qodobka labaad waxaa waaye aan waaba ka hadlaba musuqmaasuqu sow ku imaanayo iyo sida mataqaanaa lacagta dowladda intaba waa ka hadla marka jeeb dadeed ay ku socotaa lacagtaani qodobka kale oo number 3 waxaa waaye dastuurka maxaa guddiyadii la sameeyey oo hanti dhowrka oo ugu horeeyo hadda waxaa la ansixiyey hanti dhowrka sharcigiisa waxaad ogtihiin horay in loo yiri 10 wasaaradoodoo hore la yiri kulligood corruption ay ahayn xeer ilaaliya baarlamaanka uu ka sheegay warqad waxa uu dhigay aeroboortka waa loo yiri asiga arrimahan aad wado joojiyeela waxaa la mid ah hanti dhowrka arrimihii marka afdaboolan dahabay ku dhamaaday maxaa yeelay haddii musuqmaasuq la arkay oo corruption la arkay soo qof in lagu ciqaabay xabsiga lagu geeyo ma qofkii aad adigu ogeeday waxaa la yiraahdaa reer baadiyo waxay yiraahdaan ratiga weyn ma uu ka baxo ratiga yar waa ku juluxaa la yiraahdaa ninkii ka weynay haddii wax xadaayo lagu qabsayn adigu inaad marka canshuur aruuriyaa data aad xadaya ku diida adigana arrimahan marka saasay ku socdaan waxa haddana dhacday ka daro dibir dhalo wax la yiraahdo markii 4 sano lacagtan dadka laga qaadayo oo la xadaayo oo la musuqmaasuqayo haddii inta la qaato la tagaa waa fiicnaalaha mar labaad in lagu gataa la rabaa hada mar labaad 2016 haddana waxaa la rabaa in haddana waxaa la yidhi doorasho dhici ma karta adiga maxaad ka gareen doorasho dhici ma karta waxaa waaye 275 ha laysoo xulo haddana aan lacagtaan meel dhigna ku gatee weliga adigana faqriyaad ahaa qofkaanuna dadka u gadaa ma lagu noolaa karaa ilaahay idinku dheersho hantidina waa hantidaad waxaa looga bixi karaa oo kaliya waxaa looga bixi karaa in dadka Soomaaliyeed ay codeeyaan oo lacagta lala kala gaari waayo maxaa yeelay kulligeen haddaan codeyno nin kasta oo lacag meel dhiga waxay naqaysaa arbitceel lagu riday naqay nama kala gaari kariyo anagoon ogeynaan liidarka fiicnay soo xulayna marka ilaa lacag qofku soo gaarsiisa arkimaysid taasna waa la diidan yahay waa la hortaagay waxaad arki kartaa dastuurkii markii loo magacaabay 5 qofood oo caasho geelle ay madaxda ka aheeday inay iscasisho sooma ogidin dadka Soomaaliyeed qof xil iska casile ma kula fududa arrin fudud ma aha markay aragtay inaan la ogoleyn oo aan dastuurkaas in la horumariyo aan la ogoleyn oo aan doorashooyin loo socan ay iscasisho markaasay waxay tiri aniga la igu caabay ma bas iga waay iclaankay tagtay dadka Soomaaliyeed marka kadib hadii ay meeshii ka baxdo wax dastuur sheega ma maqashay ma jirto waxa waaye marka waxaa la yiri barlamaankii iyo waxaa isu taga xukuumadii iyo madaxweynihii waa isla qadeeyay markaas waxaa la soo saaray maalintii dambe doorasho dhici ma karto war muddo hal sanaha ka dhiman 3 sanana waa la soo shaqeeyay inay doorasho dhacdo in la isku taxallujiyo xadiida waxaad ka soo qaaday example hadda bangiga dhexe 7,000 dad gaaraya mushaarka qaat 7,000 hadday codeeyaan oo 7 kale lagu daro codeeyaan oo maalmo badan ay codeeyaan oo garoowe laga sameeyo oo gaalkacyo laga sameeyo oo hiiraan laga sameeyo codeynta oo baydhabo laga sameeyo oo kismaayo laga sameeyo jowhar laga sameeyo soo 2 milyan ma coday karto 2 milyan oo Soomaaliyeed hadday codayso ninkii lacag dadka ku gadaayay
meelow ka bilaabo weyha dadkaas marka damiirka hore hoggaan ku dooraya 12 milyan marka 2 milyan haday codayso waa soo dhadhaweeyeen meel wanaagsanaa la imaan karaa looma jeedo waxaa la rabaa odayaal la xereestay xero ka war anaga baadiya irigiya la xereeyaan maqli jir inuu aadan la xereeyaha adiga ka war oda soo xereeysan lagu leeyahay adoo meel iska joogo oday soo xereeyso إلهي نقول له شيء ما حكمته كينا قفل حريها يا إلهي يقول له شيء قف أدوك صاح حريس حكمة ما كفي له قف كيوقف في عنا أوبر لباك حلاي هذين الحريها يه وحوي مركب مذا يهوري مذا واجي أو تو سنتوجي أنا جوا سوقول استعديان حريس توجي يو يا أدوغاك هذا اللي مش هيك كنا بوقت أدوغان ده يدين شيء حد قدو بين كده وعايا دي موضوعية أرنتا سامرك كجر واجي هروا أضياء صح ولا لا دهجر أضياء صح ولا لما حريجر انت تك إن بقات لما حريجر جبوتنا لما حريجر شرف درada sidii loo wada oo dadkii loo karaamatiray oo boqoradii loo karaamatiray oo dadkii inflation loogu riday soo xireysan lagu leeyahay adiga hadhowbaad doora laheed soo xireyso hal waa fadaaniye adigu odayaal dhigta ka soo qabay xaram meel lagu riday oo aad dalq siisay markaad siisatay asiga kuma batashayna adigu ku qora qof kale uu yaqaan male magacaaga oo dhaqsiya saasaad xal dhibaan ku naqay isla markii waxaad dhahay lacaga iga baxda adooga markaa soo xiriyaa lacagtiyad marka soo guday adoo lacagta soo guda oo neeftuugay aad liidarka soo saareen liidarka waxa la soo saartay intuu ku geeyay kama fikirin adigu aadi hada duma santiin wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waydi ku mudara aad duma santiin كهرباء سيدنا نكسرنا هاي ماسوقة و مركب وفي أفريقيا هذا يقول ده شديد معناها ماسوقة بلارنا يا كجرو قارهان دولة الصومالية وحاول سامي أمان هيدا الدولة ده مدهان وسامي waxyaabaha sababay in musuqmaasuqaasi uu saameeyo dhammaan Afrika iyo Soomaaliya waxaa ka mid ah qodobadan soo socda oo ugu horeeya qodobka koowaad biseel la'aan ka jirta xagga siyaasadda iyo maamulka Soomaaliya sida dugsiyoontii dadka siyaasadda bartay taqasuska u leh aad macnaha usoo daraasay way ku yiri marka loo fiiriyo tirada aad ay u yiri bulshada kuma baraarugsan maamulka iyo siyaasadda in badan sidaas daraadeed waxay koodgareysay in ummadda Soomaaliyeed musuqmaasuqa aad u bato iyo dhammaan hay'adaha maamulka dowladda qodobka labaad waa hirgelin la'aan xagga sharciga iyo xeerka ummadda dejisay سيدنا نقولنا شرعيا يحرك عن دجسنا أنت قلنا قيبنا وان كجدا كنا قيبنا كجمدا كنا أو ماشي أفضل ومركزي كسامينا يوم أمور ربي وكسوق قاطع قيب كلام وكسا يوم الله غضب ككلا يسد حاجة وحوالي بلدن أما الله فرن أو عن شروع الهين أما شرع عن الهين أفضل وقت يقول والله سياسة الإمام يكون جاري لها يضع مشروع نظام كلها وسنتري قضبك أوضا بير بربر بحسن وسوي جهة أمان هيدا الدولة مودهان سؤال عن رأينا ونيديو ملاحظة ما وحويان sidee looga gudbi karaa musuqmaasuqan baahsaday ama dhammaan saameeyay hay'adaha guud ee dowladda iyo ma jira
حير كوس جرينا إن مسلم لا دجالك مسلم ماسك لا ولا تقصون hogaankana sharuudaha laga rabo islaamka marka loo fiiriyo laba lagu soo galo waxa waaye ammaano iyo karti inuu leeyahay qofku ammaano oo wixii aad u dhiibato oo ilaahay uga baqaayo oona kaa xadayn oona kaa khiyaamay taas waxay keenaysaa waxyaabaha badan oo aragteen oo musuqmaasuqan iyo waxaas oo la diriraaho wuxuu naqaanin daacadaho wixii loo dhiibta ummadda u haaya kartiduna waxay kaakabe oo iiduna daawo u tahay awood fulineeno yeelaha qofkii qaldanna waa qaba kariyaa qoftii fiicanna waa abaal mari kariyaa ilaa xumayo sama waayo waxa la hogaaminayo waxa la rabo in meesha laga saaro la kala saaro xaq iyo baadil waa hadda dawladdan ninka u dhimaaya oo u jira furuntiga oo difaaca ku jira markii oo cawada dhinto oo loo soo sheego jaad uu cunayay leeda dhibaatada jirta fiiri waa ninka furuntiga ugu jira oo difaaca ugu jira xabadaa dhag lagu siiha shabaabaa soo gaada ama difaacaya inta loogu yimaado la asxabado la asxab simbir hadii xabad aad ku dhex jirta inaad dhimato intaad ku hore hadaad dhimato jaad uu cunayay ku dhahay hadaad lacagta xadana wax fiican uu soo arooriyay uu leeyahay qayb aad dhigtay qayb u geeyso qaybaad xaday $20,000 maanta soo shaqeeyso oo waxaad ku furdada meesha oo waxa ahay areadan ex control afgooyi aad waxaad ka tahay kaaba markhaati aad ka tahay kaaba markhaatigi aad ka aheeda waa furdo meesha ma ogtahay lacagaad soo aroorayso qaybna waa u keentay qaybna adaa meel dhigta nin wanaagsan waaye canshuurtii u keenay asiga jeebkiisa kugu ammaanaa haddii aad furuntiga ku dhimatana furuntiga ninkii shabaab celaayay oo furuntiga ugu jiro dhufayska ku jira ma wax faa'iida maad ka filay oo inuu naftiisa ku huro aan geeridii hadday ku dhacdo marka jaad u cunayaad leedahay see dawlad loo naqaa ilaaha idinku dhaarshay waxaan weydiiyey fiiri nin kasta oo dadkan kamid ah oo madaxdan kamid ah nin askari cunugiisa ka dhiga ama ku arag ya nin askari ka dhigaya wiilkiisa kuma jirin askarigii intana jaar u cunahay leeyin ilaahay idinku dhaarshay marka waxaa looga bixi karaa markii aanan warka idinku daalinin leader in la helo hoggaan wanaagsan oo imaam toosanaa la yidhaah islaamka waxaa kaloo jiro gaaladu tira honesty is the leader ay tira daacadnimadu idaa leadera haddii qofku daacad yaha leader ku imaaha maxaa yeelay waxba kaa khiyaamay ma daacad ku yahay qofka ugu liita adigu fiiriyo daacad ku asaga kugu wanaagsan marka daacadnimo ayaa marka u saldhiga in waxaan laga gudbo Soomaaliduna waa heli kartaa inay qof fiican oo ugu roon ay doorato ogaada taas ida islu guuyi haday qof fiican doorato oo qofkaas ay ku doorato aqoon hore oo ay u leedahay waxa soo dhan waa laga baxa musuqmaasuqan iyo arkimeys laakiin niman waaga aan karaani soo marin oo aan haba yaraatee mushaar dawladeed saxiixin hadaad madaxweyne ka dhigto inta kula aadama ba yaqaan sidii gurigiisa uu maamulo jiro ku maamula aadaad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaan marka ugu horeysa halkan waxaan ka salaamayaa maaragtay Salaad Cali Jaale
wasiirkii hore ee gaashaaniga haddana ahna gudoomiyaha golaha dhexe ee kulan iyo dhammaan saxafiyiinta halkan joogo dhan maanta waxaa laga leeyahay ciwaanka wuxuu yahay ololaha ka hortaga corruptionka ama corruptionka Soomaaliya maanta waxaan ognahay corruptionka meesha uu na gaaray waa meel aad u fog haddana Afrika qaasatan Soomaaliya runtii waxaan qabay fikir badan iyo hadal dheer laakiin aniga waqti badan siinaya dadka iga dambeeya oo aan rabaa inaan soo koobo sida uu hadla Sala Cali Jeelle runtii oo ah qof aftaan runtii badan ee wax badan ka hadla maanta fikirka corruptionka qodobka ugu weynaa ee su'aashan qabayba jawaabteeda horey buu runtii ugu sii jawaabay oo ah corruptionka maanta Soomaaliya ka taagan waxa sabab u ah marka uu horeyso nidaamka marka la soo dhisay dawlad kuma timaado nidaam marka uu horeyso dawladda waxa ku timaadaaba qas iyo corruption taas oo ah oday yaal inta meel isku arursaday kadib odayaashaas dhaqaale la siiyay kadibna ay soo dhiseen qof natarkiisa meesha ku yimid markiis uu horeyso corruption kadib qofkii markii la keenay marka hadii aan ka hadlo corruptionka laba qayb waa mid aniga ahaantii mid waxa waay waa mid dhaqaalihi ila lunsado midna waa nidaamka meesha ka jira waa in la keenaa dad corruptionkii u sameeysan marka uu horeyso qofkan maanta meesha la keenayo hadii uu yahay qof aan maanta aqoonti lahayn oo qofka keensaday uu leeyahay fikirkan ii sameey waxaan iyo fikir ahaan iyo mabda ahaan laakiin aan loo eegin qofkan hawshan ma yaqaana ba ka bixi kariya taas marka waxa waaye waxa uu nidaamkaas ugu bees gelisan yahay tan koowaad ay tahay odayaasha wax soo xulay koow dalka Soomaaliyeed hadii laga waayo oday wax soo xula ama odayaal dad isku yimaadaan ee la hela one man one vote maalkaas bay Soomaaliya ka bixi doontaa corruption way doonaa laakiin inta ka horeyso maalin kasta corruptionka degree boo si lahaan doona haddii maanta taagan yahay 100 haddii maanta taagan yahay 50 bir 67 ilaa 100 inuu na gaarsiiyo laakiin maanta timaado doorasho xur ah qof kasta loo doortay maxaa taqaanaa darajada maxay tahay maxaa qaban kartaa awoodada maxay tahay maalinkaas ma gaar doonaa inaan noqono dad corruptionka ka bax aniga runtii soo koobaya su'aasha oo ahayd ma dhihi karnaa corruptionka waxa asal u ah odayaasha dhaqanka سؤال كو تاسي هاد لكن جوابتي ذا هوري بوز جواب هذا سنتين بسم الله